الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابي وحرين جنابكينا في الصون FX سودوادا هذا هو ما سنتين دمانتين سيدا قروحدو بدان وعلى سعودين عشرة سيدا مرول باوشو شركلينيسين وخالكا سيوغار أصحاب بدان سيدا وغيق هذا كوبعة أما كريمة جنالكا آدي مدعلينيا سيدا وكاليوحا آدي مدعلينيا سيدا quruxda badan ee afkaartiina iyo fikradihiina aad soo bandhigayseen oo qaybta commentiga ay ula wadaagaysiin ayadana aad iyo aad ayaan idinka mahadcelin doonaa sidaa wada ognahay waxaa inoo socday muuqaalkeenii ama korsigeenii taxanaa ahayd ee barashada suuqa forex-ka cashirkeenii afraad ayaa maanta qaadan doonaa oo alla idmo waxaan kaa codsanaynaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad nagu soo biirto janaalka haddii aad tahayna saaxiib hore noola joogin waxaan kaa mahadcelinaynaa sida mar walba ay noo taageertay ay noo support garaysay si janaalku u gaaro asxaab badan fadlan marka waxaa kaa codsanaynaa maadaama wankeygii oo inooga dhiman yahay wax yar inaa inoo share garaysay si uu u gaaro asxaabibo badan maanta taxanaheena afraad waxaan ku qaadan doonaa qaybteenii afraad oo ah forex trading sessions ama suuqa sarifka lacagaha qalaad suuqyadiisa kala duwan iyo xilliyada suuqyada ay shaqeeyaan siday u shaqeeyaan saa hor usoo baranay saddexdii muuqaal ee ugu dambeeyay ahayd hordhacii forex-ka ereybixinadiisa iyo lacagtiisa haddan waxaa baran doonaa ama fahmi doonaa sessionska suuqyada ama xilliyada oo suuqan furan yahay oo laga shaqeysto waayo haddii aadan garanaynin xilliga aad suuqan ka shaqaysanaysid way kugu adkaan doontaa inaad fahanti ama inaad lacag ka samaysid maxaa yeele suuq xiran oo kale haddaa imaatid uu dhaqaaqayo male tusaale kale hadda suuqa weyn ee bakaaraha waa suuq oo loo adeeg tago qof bidaaco iibsanayo iyo qof badeeco soo iibsanayo waa tagay maaha soo marka waxaa jirta marka xilli oo suuqa furan yahay iyo xilli aan furnayn soo marka xilligii oo suuqa furnayn haddii aad dhahdi badeeca geena in laga iibsadaa rabaa ma lagaa iibsana maxaa yeele qofna ma joogo maaha soo si lamid ah marka forex-ka isagana wuxuu leeyahay sessions ama suuqyo sidoo kale waxaa u hadli doonaa muuqaalka sessionada ama suuqyada ugu fiican ee suuqan lagu trade gareeyo sidoo kale muuqaalkan waxaa ku uga hadli maalmaha ugu fiican ee suuqan forex-ka laga shaqeysto sidaa wada ognahay hore waxaa usoo sheegnay suuqan wuxuu furan yahay usbuucii 5 maalmood sidoo kale waxaan baran doonaa xilliyada aan munaasabka ahayn inaad suuqan trade gareysid sidoo kale iyo gunaanudkii ayaa qaadan doonaa haddii aan ku horumarno suuqyada forex-ka suuqa forex-ka waxaa u kala saari doonaa 4 suuq afarta suuq maxaa la kala lahaa waa Sydney Junction Tokyo London and New York afartan suuq ayaa jirto sometimes meelaha qaar labadan Sydney iyo Tokyo waxaa la isku dhahaa Asian Junction labadan Sydney iyo Tokyo waxaa la isku dhahaa Asian Junction so Sydney-ga waa suuqa Australiyada ah Tokyo-dana waa suuqa Japaneeska ama lacagta yen markaad trade gareynaysay soo marka marmar qaar waxay isku dhahayaan Asian Junction London-kan waa markii lacagaha Yurubka iyo Pound-ka lacagta yuuraha adi wadamada Eurozone-ka iyo Pound-ka markaad trade gareynaysay New York-na waa saacadda Mareykanka oo inta waxaa lagu trade gareeyaa lacagaha CAD-ka iyo maxaa la dhahaa CAD-ka oo Canadian-ka ah iyo US dollar-ka soo marka afartan suuq ayaa jirta suuqa forex-ka waa Sydney Tokyo London iyo New York in isku soo duubo marka suuqyada marka dhammaantood maahan suuqyo isku mar wada furmaayo suuq walba wuxuu leeyahay waqti oo cayiman oo furan yahay iyo waqti uu xiran yahay tusaale hadda Sydney ama Tokyo oo isku dara waxaa isku dhaha Asian Session-ka Asian Session-ka waa suuq furmaayo 6dii habeenimo ilaa iyo wuxuu furan yahay 2dii subaxnimo soo marka Asian Session aa la markaasoo kale waxaa jirto beerar ama lacaga la trade gareeyo markaas iyo lacaga aan la trade gareynin sidoo kale London Session-ka waa suuq isagana waa Ingiriiska ama London-ka wuxuu furmaa 4tii subaxnimo ilaa iyo 7dii fiidnimo ayuu ku egyahay isaga New York Session-kana isagana waa suuq furmo 10kii galabnimo ilaa iyo 5tii habeenimo ayuu ku egyahay isagana soo marka waa suuq dhammaantiis saas u furan aana muhiim ku ah inaad fahanti aana ogaatid suuqa xilliga aad galaysay xilliga aan garayn
maxaa yeelay haddii aad kombiyuutarkaas kasoo furatay aad jaad imaatay aad trade furatay oo aadan xilligaas suuqa uu furnayn wuu iska wareegi leh wax oo micno ma samaynayso waqtigaa kaaga dhuma meesha so muhiimad ay leedahay inaad baratay ama inaad ogaatay suuqyada noocyada kala yihiin iyo xilliyada furaan waxay kuu saamaxay inaadan waqtigaaga si maalayacni ah oo kaaga dhamaanin oo aadan kursiga ku daalin haddii hore ugu socono maadaama aan soo aragnay inay jiraan 4 suuq afarta suuqna aan kasoo wada hadalnay xilliyada ay furmayaan iyo xilliyada ay xirmayaan soo marxaladani waxaa muhiim ah maadaama suuqyada ay kala duwan yihiin suuqyadee ugu wanaagsan oo aan lacag ka samayn karaa profit fiican waqtigeygana aan ugu manage garayn karaa laba suuqa ugu fiican waa London sessionka ama suuqa Londonka oo furmo 4tii subaxnimo ama 10kii subaxnimo ilaa iyo 4tii galabnimo iyo London and New York overlap waxaa laga wadaa markii suuqa Londonka uu furan yahay oo haddana sii furmo suuqa New York sessionka waa marka ugu badan oo suuqa uu leeyahay volume ama dhaqaaq aad u wanaagsan oo ay lacagay dhaqaaqi doonaan oo maxaa la dhahaa beerarkii si fiican u dhaqaaqayaan faa'iidana la samaynayo maxaa yeelay markaas suuqa ma ku caajisaysa maxaa yeelay volume fiicana jiro oo dhammaan labada suuq ee ugu fiican way furan yihiin that's why marka labadaas London sessionka inaad trade garaysay ama London and New York inaad trade garayso oo ah xilli London uu furan yahay oo socdo in New York oo markaas sii furmaayo oo Mareykanka ah that time oo marka waa labada mar oo suuqa volume fiican leeyahay maadaama aan soo aragnay volume-ka xilliyada ugu fiican haddana marka waa inaan fahnaa maadaama aan nahay suuqan waa suuq furan isbuucii 5 maalmood waa inaan ogaanaa maxaa la dhahaa maalmaha ugu wanaagsan ee suuqan uu dhaqaaq leeyahay iyo maalmaha uusan dhaqaaq lahayn maalmaha horta ugu wanaagsan sida meesha ku muuqato waa maalmaha Talaadada, Arbacada iyo Khamiista waayo Isniinta iyo Jimcada ee suuqa dhaqaaqa u lahayn sababtoo ah Isniinta inta badan suuqa wuxuu sameeyaa waa isdiyaarinaa wuxuu isku diyaarinaa meel inuu aado ama dadka market makerska ah wuxuu isku diyaarinaa maadaama Isniinta shaqada ay kow tahay in maxaa la dhahaa iskaansha badan ka sameeyaan si meel ay suuqa ugu jiheeyaan soo marka inta badan Isniinta wuxuu suuqa haddii ama pattern uu sii sameysanaa ama meel liquidity uu buuxinaa ama maxaa la dhahaa support uu buuxinaa ama resistance so whatever ama range uu ku jiraa markaas dhammaan waxaas dhan waa baran doonaa suuqa inta badan maalinta Isniinta ah waa maalin uu suuqa isdiyaarin uu ku sameynayo Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiistana waa maalmaha aad suuqa ugu leeyahay volume fiican Jimcadana iyadana ma ahan maalin suuqa volume lahayn laakiin inta badan volume-ka aad u yar yahay maxaa yeelay qof kasto usbuucii dhan ayuu soo shaqaynayay lacagtii uu samayn karaa hadduu faa'iido samaynayo hadduu khasaare samaynayo wuu haystaa waa maalinta ugu dambeysana suuqa nin walbana wuxuu isku diyaarinaa Sabtida iyo Axadda holidays ama vacationkiisa sida u qaadanaya that's why marka dadkana suuqa trade garaynayo ay Jimcada ugu yar yihiin soo marka maalmaha ugu fiican waa maalinta oo Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiista haddii aan hore u socon marka dhammaan inta wuxuu kuu sheegaa deriska lacagaha iyo maalmaha ugu wanaagsan volume-ka ay sameynayaan dhaqaaqooda ugu wanaagsan ayaa lahaa marka taas waa halkaas ugu gudbaynaa qaybteeni kale oo ahayd xilliyada aan munaasabka ahayn oo lagu baahnay inaan suuqan trade garaynin haddii aadan ogeyn xilli oo la trade gareeyo oo aad xilli kasta iska imaatid aad xilligaana trade garayn ama xilligaana trade furana waxay kuu adkaanay inaad suuqan waqtigaagana si oo aan munaasab ahayn ayuu kaaga dhamaanaya marka waxaa muhiim ah marka inaad fahanto qodobadan oo ah inaadan xilliyadan aad suuqa trade garayn maxaa ka mid ah xilliyada bank holidayska markii uu jiro bangiyada markay fasaxa yihiin looma baahno inaad suuqa trade garaysid maxaa yeelay bangiyadu waa dadka suuqa qaajiyo maxaa yeelay adigu waxaa tahay retailer ma awood inaad suuqa meel u jihaysid waxa suuqan jiheeyo waa bangiska haddii marka bangiga aa u baahan tahay inaad lacagtiisa trade garaysid haddii bangiyadii marka ay fasax yihiin tusaale kale waxaa dhahday JBP USD aad trade garayna
JBP USD markaad trade gareysid labadan lacagood markaad waa trade gareyna haddii marka bangiga Ingiriiska iyo bangiga oo Mareykanka ay fasax yihiin suuqaas wax dhaqaajinaya ma laha waxay noqonaya marka inaad suuqa kor fadhisid oo wax natiijo aadan ka helin soo marka xilliyada ay fasax yihiin looma baahna inaad suuqa maxaa yeele meelo website laga bartaa jirto waa arki doonaa ayagana xilliyadaas muhiim maahan inaad trade gareysid sidoo kale waxaa muhiim ahayn inaadan trade gareynin oo lagaa baahan inaad xilligaas aad iska dhaaftid waa Friday afternoon oo weekendiga ama dhamaadka usbuucyadoo kale maalinta galabtii jimcadoo kale marka la gaaro 11 saac ilaa iyo 12 haddii la gaaro haddaad dhahdo waa trade gareynaa wax natiija ma leh maxaa yeelay dhammaan suuqii wuxuu isku diyaarinaya xilli xiritaankiisii dadkii dhan suuqa way ka tageen meterskii oo suuqii ama dadkii suuqa dhaqaajinayay way kala tageen soo marka wax natiijo ah ma ka samaynaysid xilliyada kale aan munaasabka inaadan trade qaadan end of December dhamaadka bisha December sababtan waxaa waaye saa wada ognahay inta badan reer galbeedka waa dad maxaa la dhahaa Christmas aado waa dad maxaa la dhahaa oo diimahooda noocaas tahay maadaama marka fasax wada aadayaan bangiyada fasax aadayaan qolo walbo wax kasta oo dowladeed ama wax kasta oo suuq aan ku tacalluqin dhammaan waxaa la wada aadaa fasax xitaa dadka oo mentoriska waaweynka ama akademiyada waaweyn ama wax kasoo baranay dhammaantood xilliyadaas oo kale fasaxay wadaagaan qof walba wuxuu leeyahay aniga waxaa aadaa fasaxayga soo marka adina waxaa lagaa baahan yahay inaad fasaxaaga soo qaadid refreshment ka aadid si maxaa la dhahaa sanadka cusub aa ugu imaatid adoo fresh marka looma baahna inaad Decemberka dhamaadkeeda oo ka bilaabanaysa inta badan 25 ee dhahaan oo Christmaska ah laakiin 10keeda 15teeda inta badan waa gabaabsi waaye sidoo kale xilliga oo loo baahnay inaadan trade gareynin waxaa ka mid ah xilli when angry or frustrated عشان markii aad tahay qof xanaaqsan ama qof niyad jabsan oo kale ama qof markaas dareemayo wax caabuqa xilligaas muhiim maahan mana mudno inaad suuq gashi ama aad trade gareysid sababtoo ah qofka mar allaala markuu xanaaqsan yahay mar allaala markuu niyad jabsan yahay way adag tahay in uu go'aan saxan qaato that's why marka aa lagu leeyahay xilliyada xanaaqsantay ha trade gareynin ama suuq ha galin maxaa yeelay ma qaadan kartid go'aan wanaagsan si lacagtaadan akoonkaaga ay kugu soo gareysanto maskaxdaadana aysan buuq kale oo siyaado oo lacag aa khasaarto aysan dhibaato kugu sii noqonin xilliyadaas oo kale waa inaad suuqa banaanka istaagtid oo aad iska sugtid ilaa iyo arrimahaaga aad iska xalinaysid ama aad kusoo noqonaysid xaaladaadii normalka ah muhiim maahan inaad trade gareysid xilligaas waa inaad banaanka istaagtaa suuqaas sidoo kale xilliyada aan suuqa munaasabka in la trade gareeyo waxaa ka mid ah Asian Sessionka ama suuqyada Asianka oo ah Sydneyga iyo Tokyada oo laisku dhahaa waxaa laisku dhahaa Asian Sessionka soo xilliyadaas inta badan suuqa ma lahan wax volume soo marka adina marka ma u baahnid inaad xilligaas waqtigaas kaga dhumisid sidoo kale xilliyada aan aadka oo looga taxadaro ee tahay inaad suuqa aadan trade gareyn waxaa ka mid ah xilliyada lasoo deynayo newska ama akhbaaraadka ku saabsan lacagaha warbixinadooda haddii ay noqon lahayd inflationka oo interest rate-ka haddii ay noqon lahayd maxaa la dhahaa CPI-da consumer price index-ka dhammaan newsyadaas markay dowladaha soo deynayaan ama bangiyada ay soo deynayaan dowladaha inaadan trade gareynin sababtuna waxaa waaye newskaas ama warbixintaas ma ogid meeshay aadayso maxaa yeelay volume-ka aad ayuu u sareeyaa soo marka ma garanaysid xilli meesha uu aadayo hoos muu aadaa kor muu aadaa ma garanaysid lacagtan kor may u kacee hoos may aaday ma ogaan kartid soo marka xilligaas oo kale oo newska jiro waxaa kuu wanaagsan ilaa iyo aan newska aad si fiican ugu baranaysid batatanba ma wanaagsana in news aad ku trade gareysid maxaa yeelay go'aanka newska siduu noqon doono ma ogid adiga sababtoo ah adiga ma tihid market makers ama playmaker ma tihid oo suuqa ma sameysid soo marka waxaa kuu qurux badan inaad banaanka istaagto sidoo kale xilliyada aan munaasabka ka mid ah xilliyada suuqa xirmayo haddii aad aad suuqii oo weekendigii oo ah maadaama 5 saac 6 saac uu xirmayo habeenkaas haddii aad aad 3 saac habeenimo trade furana so waa suuq xilli uu xirmayo waxba ma ka faa'iidaysid ayadana munaasab maahan inaad suuqa aad trade gareysid ama trade aad hor fadhisid sidoo kale xilliyada kale waxaa ka mid ah overnight oo kale
habeenkii xilliga dambe oo kale inaad dhahday 7 saac soo kacaa, 6 saac soo kacaa. For me aniga ahaanteyda oo kale waa soo maray. Xilli waxaa jirta overnight waa waqti dambe inaad iska soo kaco, kombiyuutarkii furo, aad dhaho trade raadinaa. Waxaa arki jiray 9:00 saac markii la gaaro inaa xoogaa ama 10:00 salaadii markii loo dhow yahay in xoogaa hurdada soo qabato oo caajis. Maxaa yeelay markaas suuqa maba suuq dhaqaaqayo maahan, meel u socdo ma lahan. So marka wax la iibinayo ma lahan. So marka overnight-kana ayadana iska ilaali. So dhammaan qodobadan qodobo muhiim ah inaad ogaatid si aadan waqtiga kaaga dhumin aad fadhiisid aysan waqti badan kaaga dhumin. So marka qodobadan waa inaad maskaxdaada ku haysaa, waa inaad xasuusataa mar walbo, waa inaad la socotaa. Marka taasaan leenahay. Marka waxaan kusoo gunaanadooynaa marka conclusion-kii ama waxyaalihii aan soo sheegnay oo cashirka aan uga hadalnay oo ah trading session-ka xilliyada suuqa. Aan ku sheegnay Sydney ama Tokyo-da oo laisku dhaho Asian-ka, London iyo New York. Xilliyada ugu fiican oo suuqa volatility-ga ama volume fiican uu leeyahay waa xilliga London-ka iyo London and New York overlap-ka. Sidoo kale maalmaha ugu wanaagsan ee suuqan volatility ama dhaqaaq fiican uu leeyahay waxaa ka mid ah Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiista. Dhammaan waxaan rajeynayaa inaad taxanaha si fiican ula socotiin, cashiradana aad iyo aad ugu ceshatiin. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee booqashada, waxaan kaa codsanayaa inaad kusoo biirtid channel-kan aad subscribe saartid. Haddii aad tahayna asxaab hore noola joogtayna fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka meel sare gaarsiisid, asxaabtaadana la wadaagtid, like, share iyo comment ha ka marnaanin.